السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. إلهي تبارك وتعالى أن أمهدنا وحلينها يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تسمد. أبواب غيرك ربنا قد أوسدت، ورأيت بابك واسعا لا يسد. الله سبحانه وتعالى وحو إن وافجيي إن سو غارسيي يعنيه إلا يوم انتظن أما السنة كان لبضكم يتضوي طبانك يعنيه رمضان يعني فرحت كسوصوني عيد الفطر أن صوم حنقول هاي تكني وأن صوم عيد سني حدنا في الله الحمد والمنة ما أنت وحن جوجنا مالنتي السجالات مركز برينا أن رجينا إن شاء الله تعالى أو ما أنت أن صومنا بريتنا أن رجينا إله إذن كيسنو إله نجارسيو عيد الأضحى إن بري عيد سنو عيد مركز خوفك مسلم كأه محا أي تهينو سميو محيسنا أهينو سميو maxaana la gudboon berito ilaahay idinkiisa hadduu ilaahay yani nafta inoogu simo na gaarsiiyo inaan samayno. waxa ugu horeeya waxa weeyaan qofka salaatul fajr marka uu tukado kadib waxa dhashay weeyaan markaasi yani xilligii takbiirta bilaaban lahayd. yani waxa ilaahay idinkiisa ay tahay berito in markaasi laga bilaabo oo kowda ah ciidda maalinta ciideed takbiirta in la bilaabo oo qofka markaas inuu takbiirsado oo takbiirta u badiyo waxyaalaha ugu horeeya ugu weyn uu qofka sameeyo weeyaan. takbiirtaasi waxay soconaysaa maalintaasi berita ah oo jimco ah, maalinta ku xigtay sabti ah, iyo maalinta ku xigtay axad ah. saddexda maalmood ayay soconaysaa. waxaana loogu talagalay markaasi qofka muslimka inuu weynayo Allah tabaaraka wa tacaala. haddaad gurigaada joogto, haddaad yani suuqa socoto, haddaad shaqadaada ku jirto, haddaad gaari wado, انت بالله تبارك وتعالى حس. إلهي تبارك وتعالى تكبيرته قاد أو حس إلهي سبحانه وتعالى وحقوه ريويان وحقوه ريويان عد العدي أبو دمر قاسم بريتو إلهي إذن كيسا ذبحيجي أما محاقرها إن لقرأ وحي مركز إلهي قف كان أفضل وسيجي إذا أما أريئة وحي لمتكا قف كان أولين طبعا مركز سدوش يسماها لكن عد العدي أبو دمر كان يسميسو آريد مساجدك maxaan ku rahay ama barxadda weyn ee lagu tukanayo macnaha waxa fadli badan yani barxadda weyn in lagu tukado la aado taas fiicano yani aad loo jeclaysanaya. allahumma hada roob iyo wixii la midka ah inay markaasi aysan macnaha ay jirin ma ahan. hadii marka ay roob iyo wixii la midka uu jiro marka waxa la jeclaysanaa waa maxamisaadkii caadi in lagu tukado. waxa xigta aadid aad aadayso markaasi adigoo soo qabeystay isoo carfiyay oo markaasi yani dabcan waxyaalaha oo dhan lama yani laguma sheegayo waxa taqaano, laakiin min baabil yani tadkiir weeyaan waa baraarujin aan isbaraarujinayno. sidaa darteed waxa ugu horeeyaan nidi macnaha qabayskii isoo carfintii oo ragga ah yacnihi iyo labiskii aadka u quruxda badnaa markaasi. ama dumarku waxay kaga duwan yihiin iscarfinta ayaga isma carfinayaan, catar iyo caraf lagama doonayo dumarka. dharka ay qaadanayaan dhar wanaagsan weeyaan nacmo nadiif ah, laakiin waa inuu noqon dhar markaasi yani jirkooda muujiya, quruxdooda muujiya. dhar markaasi ku dhagan lama doonayo, waa xijaabkii sharciga laga doonayaa weeyaan. sidaa darteed waxaan yidhi yani su'aalidii masaa'idka ama maxaan ku rahaa barxaddii la soo aadayay in markaasi haddii ay macquul tahay in markaa loo soo lugeeyaa fadli badan oo fiican. haddayna dabcan macquul ahayn in lasoo lugeeyo markaasi cid walba waxay markaa heli karto ayay ku aadaysaa. waddadaasi marka aad aadaysa aad ka baxday waxaa fadli badan haddana kusoo laabashada inaad kasoo laabato waddo kale haddii ay macquul tahay weeyaan ay jirto. laakiin haddii hasha waddo kaliya aad haysato taas unaad macnaha aad ku aadaysaa kuna soo laabanaysaa. laakiin waxaa fiican shaacirta ilaahay subxana wa tacala muujinteeda darteeda iyo shukrin allah subxana wa tacala loo shukrina ayadoo la takbiirsanaayo waddadaad ku aaday barxaddii salaada ma ahan waddada kale inaad kusoo laabato. taa ayaa wanaagsan oo fiican. sidaa darteeda yacnihii waxaan yidhi tahniyad sidoo kale in la isu tahniyeeyo. qofka aad taqaanid iyo qofkaanan garanaynin, qofka kuu dhow iyo qofka kaa fog, intaba inaad u tahniyeyso oo aad macnaha ciid wanaagsan aad dhahdo asxaabtiina ka sugan tahay tahniyadda. intaasi marka waa wixii marka mustaxabaadka ah ee la jeclaysanayay qofka ciidda berito insha allah inuu ku qaabilo biidni illahi albaari. ama waxa xiga maxaa aysan ahayn inuu qofka markaas sameeyo. ogow ciidda berita ah ama farxadda aan rajaynayno inuu u farxno allah subxaana wa tacaala nimcadiisa iyo gaarsiintoona soo gaarsiiyey iyo damaashaadka iyo shaacirta allah aan muujinayno waxa ay tahay waa cibaado intaa oo dhan. waxaa cagsigeeda la diidan yahay inuu qofka sameeyo asoo ilaahay subxana wa tacala u mahadinaya cibaadaysanaya inuu haddana ilahay ku macnaha macaasi sameeyo oo munkar ii sameeyo oo heesaha ka mid ah oo waxaa ka mid ah yani maxay yacnihii filimaanta ka mid ah waxaa ka mid ah isdhexgalka markaasi ikhtilaadka ragga iyo dumarka isdhexgalayaan
ama meelaha xafladaha muusiga iyo macnaha yani ama bandhiga faneed sida lagu tilmaamo oo markaas yani macaasi iyo munkaraad uu ka buuxo billaahi calayk adigoo ilaahay subxaana wa tacala u faraxsan u mahadinaya shaacirtiisa muujinaya ma haddana waxay tahay inaad macsiyaysato oo ilaahay subxana wa tacala ku caasiso mase macquul tahay in aad macasi allah aad caasinayso iyo farxaddii ciidda iyo wanaaggii iyo shaacirta alle inaad muujiso ma isla macnaha isku meel ma galayaan waa maya sidaa darteeda beri waxaa iskale waa farxad waxaa iskale waa macnaha damaashaad waxaa iskale yani maxay wax walboo khayr ay taaca ayaa iskale macaasi shaqo kuma laha beri macnaha macaasi iyo wax la mid ah iyadoo macaasi marna aynan bannaanayn marna haddana beri khaasatan inta badan shaydaanka wuxuu aad u sahlaa maxay maadaama maalin ciid ay tahay yacnihii in qofkii macaasida u fududaato sidaa darteeda qof walbo maqlaaya ama uu soo gaaro yani maqaalkan ama macnaha yani maxaan ku dhahay videogan uu soo gaaro waxaa dushaada ah inaad ilaahay subxana wa tacala u mahdiso oo aad ilaahay u macnaha weynayso oo aadan ilaahay marna ku caasin shaydaan yoonu kugu qalqaalin iyo shaydaan yani ku saarin oonu kugu kallifin inaad adigoo ilaahay subxaana wa tacaala u shukrinaya baryaaya takbiirsanaya shaacirtiisa muujinaya in haddana aad ilaahay subxana wa tacala ku caasiso aad iyo aad aan uga fogaano yani aad iyo aad aan uga fogaano waa macnaha waa wax jira ilaan waxaadna ognahay sidoo kale soomaali haddaan nahay ciidda iyo marka la gaaraba bandhig faneed yani heeso maxay riwaayado intay dumarkii isoo qaabiyaan raggii sidaasoo kale laysu yimaado intaa oo dhan aan ka fogaano ayuha alaxiba waa baraarujinta kooban aan jeclaystay in yacnihi aan idinla wadaago yacnihi rabana biidn illahi tacaala inuu insha allahu tacala dhammaan aan ku wada dhaqanno haddii ilaahay subxana wa tacala ina waafajiyana yani farxaddaasi waxaan ilaahay ka baryanaa sidoo kale maxay in ilaahay acmaasheena intaa soo socotay ayaamaha kale ah ama maalmaha kale iyo bilaha kale iyo sanadaha kale inuu ilahay dembigeena dhaafo ilahay subxana wa tacala marka in badan aan xusno hada wallahu aclam وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته